ololaha nadaafadeed oo iska kaashanayeen degmooyinka Yaaqshid iyo Kaaraan ayaa laga fuliyay wadada dheer ee Fagax ee isku xirta degmooyinka Yaaqshid, Kaaraan iyo Hilwaa oo xirneed muddo ku dhawaad hal sano ah. wadadaani oo muhiimka u ahayd isku socodka dadka iyo gaadiidka dadweynaha ee saddexdaasi degmo ayaa waxa ay u xirneed biyo iyo qashin buuxiyay wadada dhexdeed, waxayna mas'uuliyiinta degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshid ay bilaabeen in ay dib u furaan wadadaasi. gudoomiyaha haweenka degmada Kaaraan Suldaano Axmed Maxamed oo ka hadlaysay ololaha nadaafadeed ee laga fuliyay wadadaasi Fagax ayaa sheegtay in markasta haweenka ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada biyo dega shaqa laga wada isxilqaana ka socdo. waa arkaysaa gabdhii reer Kaaraan, gudoomiye waa arkaysaa cagaf ku saaran yahay, shaqadu way socotaa. waxaan leenahay dalkaaga dhiso, dalkaaga nadiifso. nadaafadda waa iimaanka nuskiis. isxilqaanka oo ku dhawaaqay madaxweynaha ayaan ayidsanahay, ayaan daba soconaa. gudoomiyaha degmada Yaaqshid Muuse Keese Jimcaale iyo gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan ayaa waxa ay ka codsadeen shacabka iyo ganacsatada degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshid in ay kala shaqeeyaan hagaajinta wadooyinka dhexmara degmooyinkaasi. waa isxilqaan oo ah qof walba adiga madaxaaga meelaha ku soo xiro. waxaan is leeyahay bulshada degan Kaaraan iyo Yaaqshid wax u wanaagsan ma jiraan. wadadan waxay xayirneedaan maleynaa muddo ku dhow sanad iyo samti. waxay u xayirneedaan wax macna weyn oo saas u sii badan maahan. waqtiga la gelilayay iyo biyo fariisiska ay noqotay ka soo bilaaw ilaa Sanca ilaa iyo muxuu ahay hotel Ramadaan waa aragteen biyo fariis ay noqotay. waxaan leeyahay bulshada degan labada degmaba inaan isu bahaysano, isugu tagno laamigaas iyo wadadaasna aan dhisano. waa dhisi karnaa. intaas waxaan leeyahay waa qof walba garashadeeda iyo garaadkeeda intuu Ilaahay siiyay. CC waa aragteen markay biyaha fadhiisanayaan. waxaan leeyahay siyaasiyiinta iyo ganacsatada iyo aqoon-yahamiintaba iyo bulshada degan degmada Yaaqshid degmada Kaaraan war wadadan inta isugu tagno waa dhisi karnaa. garabkiina Allah galana soo garab istaaga. meeshii biyo dega ama wartii in Fagax ayaanu shaqo ka qabanay oo muddo dheer aan la marinin. waxaan rajaynaynaa in ay biri ama wixii ka dambeeya la maro. waxa kale in sidaa la socotaan dad dalkan cid u maqan oo lagu halaynayo inay wax ka qabato ma jirto. annaga inaan wax ka qabanno ay tahay. waxaa la rabaa guud ahaan shacabka degan labada degmo Yaaqshid iyo Kaaraanba inay ku talagalaan inay u taalo iyada shaqadan iyaga ay u taalo. kuwa aqoon-yahanada ah ee u dhashay deegaanadaasna waxaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan. Aamin Xaaji Xuseen Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Muqdisho.